boqolka maalmood ugu horeyso dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqan gelino waxa aan damacsanahay ee security-ga iyo political stability-ga iyo economic recovery-ga legal framework-goodii horta ugu weyn inaan salka u dhigno boqolka maalmood ugu horeyso dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baas gareyn doonaa boqolka maalmood ugu horeyso waxaan aad xoog u saari doonaa inaan soo gabagabayno arrintii deyn cafinta ama meel gabagaba ugu yaraan aan soo gaarsiino waxbaa ka dhidhiman yar waxaan rabnaa boqolka maalmood gudahooda inaan reform ku sameyno hay-adaha amniga sharciyadoodii oo aad u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn iyo structurekooda inaan reform gareyno oo la federalize gareeyo lagu apply gareeyo nidaamka federaalka hay-adaheena inta badan weli waxay u dhisayeen qaabkii ee dowladda dhexe ay wax walba ay ahayd waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaaleynayo arrimaha muhiimka ah magaaladan inaan xaqiijinaan rabnaa inay amni noqoto si aan u xaqiijinana amniga muqdisho dhexdiisa le kuma xaqiijin karno labada shabeelle iyo bannaankana waa ka xaqiijinaynaa muqdisho gudaheedana intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaan yeeli doonaa caalamkana waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaane waan soo dhaweynaynaa safarkii hore markaan xukunka ka degay ku wareejiyey dowladda cusub ee madaxweynihii la doortay iyo dowladda cusbeeday waxaan ku wareejiyey waxaa ka mid ahayd qorshe looga gudbayo nidaamkan doorashada dadban iyo 4.5 qorshihii lama dhaqangelinin sababo badan awgood wuu yaallaa weli kii oo aan dib u eegis ku samayna ayaan dhaqangelin doonaa dadka soomaaliyeed ma jeclin in nidaamka hadda siday wax u dhaceen ee doorashada dadban iyo 4.5ka oo khilaafka miirana inuu ku soo noqdo ma jeclin haddii alla yidhaha 2016 markuu teeramkeena dhammaanayo nidaam doorasho oo dadku isku raacsiisan yihiin oo doorashada dadban ka duwan ayaan la iman doonaa insha allah horta problemkeena ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya maaha problemkeena waa problem structural ah constitutionkeena hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqayn lahayaa 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyay ma jiro ama laba ra-iisul wasaare hala bedelo ama saddex ra-iisul wasaare hala bedele madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaab isla dhameey taariikhdu ma ayan dhicin marka issuega madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa wax dib u eegis u baahan inaan parliamentarian noqono inaan presidential noqono waa la yaqaan laakiin nidaamkan hybridka feere nimaa la doortay aniga habeen hore la doortay muddo dheer doorasho soo socotay wakiiladii dadka Soomaaliyeed ayaa la doortay hadda ra-iisul wasaaraha magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiisa iska joogo oo isagoo laftiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale ayaa biri subaxii laga yaabaa inaan ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ma bisha dambe aan ra-iisul wasaare u magacaabo ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato inta kale xafiiskay ku soo dhammaadaan dadka Soomaaliyeedna madaxweynahay dayayaan mas'uuliyadana asigay saarayaan marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed in lagala hadlo lagana doodo la furo oo la hagaajiyo hadii la